asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. soo dhawaada daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamij kale xiisa badan. waxaan ka hadli doonaa teleefanka smartphone-ka. haddaba sidee ayaa loo sameeyey ayay kula tahay teleefanka smartphone-ka ee aad had iyo goor wadato? noocyo badan oo kala duwan oo teleefano cajiiba ayaa dunidan soo maray, balse kanaan maanta ka hadlaynaa waa smartphone. smartphone-ka marka la samaynayo waxa uu soo maraa heerar aad u kala duwan. heerarkaasi oo ay ka mid yihiin heer uu ka kooban yahay jibab yaryar, kuwaasi oo la isku xidhay mid loogu geeyey ayna ka shaqaynayaan khubaro loo tababaray. jibabka kan waxaa lagu shubayaa brogaraamo iyo barnaamijyo loogu talagalay, kuwaasi oo isticmaalaha u sahlaya inuu si fiican ugu adeegto. haddaba maanta waxyaabaha aad ka bogan doontaan waxaan ka mid ah naqshadaynta, fadhiisinta, habaynta iyo weliba heerarka kala duwan oo uu soo maray teleefanka gacantu. sida hadda muuqaalka idinka muuqata waxaad u jeedaan rag ka shaqaynaya shirkaddan aadka u ballaadhan oo maalintii soo saarta ilaa iyo 2,000 oo teleefon. dabcan waxaa idin muuqanaya jibab aad u yaryar iyo sagxado loogu talagalay in markaasi lagu fadhiisiyo. waxaa la rakibayaa kaamirooyinka, waxaa lagu rakibayaa jibabka aadka u yaryar ee kuwa codka qaada, kuwa codka baahiya, samaacadaha iyo waxyaabaha la halmaala, kuwa anteenada, kuwa FM-ka iyo kuwa wireless-ka. intaasi ayaa waxaa loo rakibayaa xabad xabad. sidaad aragtaan hadda waxa weeye waa qaybihii ugu dambeeyey ayuu marayaa teleefanka diyaarintiisu. dabcan waxaa lagu rakibayaa sagxaddii ayaa la rakibayaa, jibabka dhanna waa lasoo dhammaystiray. waxaan kusii siqaynaa oon kusii dhownahay in markaasi programkii mobilka lagu shubo. dabcan telefoonka hadda la samaynaya waa noocyada smartphone-ka ee systemka android-ka ku shaqeeya. waayahay markan waxaa la marayaa hawshii qaybtii dhexe ugu dambeysay ayaa la marayaa. kaamirooyinkii ayaa la rakibayaa iyada oo mid walba lagu fadhiisinayo booska uu leeyahay. teleefanku dabcan hadda waa diyaar. waxaa keliya u dhiman waxa weeye in tijaabooyin laga qaado qaybaha uu ka kooban yahay iyo in loo dhammaystiro programka ama systemka uu ku shaqaynayo. waayahay hadda waxaa loo baakgarinayaa qaybaha diyaarinta ama tijaabada. tijaabadii ayaa laga qaadayaa. tijaabadan waxaa la samaynayaa in network uu shaqaynayo, anteenada iyo meelaha kale ee la midka ah sida programmada. tijaabadii waa ay lagu guulaystay. okay, waa ka soo qaadistay. marka waxaa la samaynayaa marka tijaabadii dhanka dabka iyo tijaabada samaacadaha iyada oo mid loo fiirinayo. sidoo kale hadda waxaa socota qaybta aqoonsiga telefoonka. dabcan sidaan ognahay telefoon kasta wuxuu leeyahay qayb gaar ah oo lagu aqoonsado iyo nambaro la tiriyo, kuwaasi oo lagu garan og yahay. waayahay waxaa la eegayaa teleefonku inuu sida caadiga ahayd oo lagu talagalay u shaqaynayo. waxaa la fiirinayaa samaacadii iyo ku hadalkii ayaa ahaa ragga loogu talagalay inay ka shaqeeyaan qaybta tijaabada ay samaynayaan. waayahay weli tijaabadii ayaa socota. dhinac kasta ayaa teleefonka laga eegayaa inuu u dhammaystiran yahay. waa tahay markan waxaa si toosa iyana loo tijaabinayaa qaybta aqoonsiga EMI-ga aad u taqaanin ayaa la tijaabinayaa inuu si fiican u haysto, si markaasi teleefonka saxaanshihiisa iyo weliba aqoonsigiisa loo saxo. sidoo kale waxaa la samaynayaa ilaa iyo 20 tijaabo oo isugu jira dhinaca CPU-ga, kaamirooyinka hore, kuwa dambe, FM-ka, wireless-ka, dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay oo ilaa iyo 20 tijaabo ah ayaa hadda la sameeyey. dabcan gabagabadii ayaan kusii dhownahay. teleefoonkiina waa u diyaar garoobay. waxa uunu isu diyaarinayaa amaba loo diyaarinayaa markaasi in intii ugu dambeysay tijaabo ah laga qaado, kadibna markaasi loo gudbiyo qaybta dhoofinta iyadoo alaabtii kale ee kartoonkiisa lagu cabayn lahaa la raacsiinayo, lana diyaarinayo sidii markaasi loo cabayn lahaa, karatuunna looga dhigi lahaa, loona iibgeyn lahaa, loona gaadhsiin lahaa shirkadihii iyo meelihii loogu talagalay. haddii ahaan lahayd dhoofin dalalka dibadda ah, haddii ahaan lahayd dad online kaga soo dalbaday, iyo shirkadaha waaweyn, istoogyada waaweyn ee telefoonada ka ganacsada. mawduucan xiisaha lahaa ee toddobaadkan halkaas ha inoo joogo. waxaad kala socotaan channelka La Jaanqaad Dunida oo tiknoolajiyadda casriga ah, hababka adduunka meesha la marayo aad had iyo goor ka heshaan. ha ka maqnaanina, hana moogaanina channelka La Jaanqaad. fadlan subscribe ta saara, horena u sii socda. mahadsanidin.